jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbos, Ohio ayaa soo buuxdhaafiyay qabuuraha muslimiinta ee magaaladan oo lagu aasayay laba dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu dilay habeenkii Sabtidii la soo dhaafay mid ka mid ah xaafadaha magaalada tan. labada dhalinyarada oo wada saarnaa hal gaari oo lagu toogtay waxa lagu kala magacaabi jiray Cabdullaahi Saciid Shariif oo 30 jir ahaa iyo waliba Cabdiqaaliq Saciid Maxamed oo 20 jir ahaa. ma cadda ilaa iyo hadda cidda dilkooda ka dambeysay waxaana socda baaritaan, laakiin arrinta dilka dhalinyaradan Soomaaliyeed waa mid sii korinaysa walaaca jaaliyada oo u caalwaayay halka sartu ay ka qurunsan tahay. in badan ayaa aaminsan in dilalkani ay yihiin kuwa silsilad ah oo dhalinyarada dhexdeeda ka socda, laakiin ay adag tahay sida lagu ogaado. Maki Saciid Shariif waxa uu la dhashay marxuun Cabdullaahi Saciid Shariif, waxa uu sharaxayaa qofka walaalkii uu ahaa iyo waxa ay dilkiisa ka og yihiin. anigoo ah Maki Saciid Shariif Cusmaan, marxuumka la dilay Cabdullaahi Saciid Shariif Cusmaan walaalkayga iga yar waaye. waxa la dilay maalin Sabti ah markay saacadu ahayd 8 macnaa waxaan ka wadaay maxaa la yidhi 8 maqribka la dilay. waxaan ogaanay maalinta ku xigta ayaan ogaanay. kadib waxaan u tagnay meesha dambiga lagu baaro booliiskan u tagnay. waa inoo sawirkiisa ayna tuseen ma walaalkiina miya ha ay nagu yiraahdeen. information badan aan weydiinay, waxa information ay siiyeen malaha. investigation ku jirnaa ay yiraahdeen. ilaa hadda investigation kan sugaynaa. Cabdi Cusmaan Ciise waa ehelada Cabdiqaaliq oo ah wiilka labaad ee maanta lagu aasay magaaladan. Cabdiqaaliq wuxuu ahaa shakhsi runtii nin dhalinyaro oo aad iyo aad u fiican oo waxbarashada xagga quraanka iyo maadiga iyo kulli aad ugu fiican u ahaa. wuxuu ahaa da'diisu waxay ahayd 20 jir. wuxuu wadanka ka soo noqday muddo hadda 2 sano ah ayuu joogay isku soo noqday dalka. hadda waxba ma uusan hayn wax shaqo iyo wax iskuul ah midna ma hayn. marka nin 20 jir ahaa, nin akhlaaqdiisa si aad iyo aad u fiican u ahaa, nin quraanka dhameeyo ahaa. aabihiis iyo dugsiyada magaalada Columbos ku yaala ayuu quraanka aad uga bartay. dugsiga sarana nin ka baxo ah. culimadu waxay muujinayaan inay doorkooda qaateen, laakiin arrintu ay tahay mid aan la dhayalsan karinin. dhalinyaradu xaqiiqatan waa ubadkii, waa bari dadkii meeshiina badari lahaa. waxaa la gudboon in ay fikiraan oy horay fiiriyaan aynan gadaal fiirin. waxaa la gudboon saaxiibada xun inay iska ilaaliyaan. waxaa la gudboon in aynan qof kale oo aynan garanaynin la socon. waxaa laga yaabaa dhalinyaradan hadda raggii dilay inay meeshan ku dhex jiraan ama dad maaragtay maxaan ku raadayay dilkaasi wax ka og ay meeshan ku dhex jiraan. marka annagii baa wax kala qarinayna. marka Soomaalida waxaan ku bogaadinaynaa yaan la baqin. qofka dhibaatada geysta waa in la sheegaa. Sheekh Aadan Cabdulle oo aaska kadib qabriga kula dul hadlay dadkii ka soo qayb galay aaskan ayaa walaacaad u daran ka muujiyay halka ay ku socdaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkeed. geeridu waa xaq, laakiin geerida waa naloo weheliyaa. waxa geerida noo weheliya dhalinyarada iyadii baa islaynayso, qaarna cid kala dilayso laynayso. laba baan u dhimanaynaa, saddex baan u dhimanaynaa. waana aamusannahay, xalkeedii isma weydiinno. haddaan saa ku sii soconno waa su'aale, ma sii jiri karnaa? maya, ma sii jiri karno. waxaa laga murugsan yahay ogaansho la'aanta cidda disha dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan ilaa iyo iminka aysan jirinin cid maxkamad loo soo taagay. waalidiin, dhalinyaro iyo saaxiibo badan waxa ay ka walwalsan yihiin halka ay ku dambayn karaan dilalka qarsoodiga ee dhalinyarada Soomaaliyeed loo geysto. Deeqasona SNTV Columbos, Ohio.